I love you والله عمر يا لحد أنت ضدك عليك ما يسوق ما يعس عادي ويسوق هذه عمر عدة لنا إني شيء دا وحنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داودياشا quruxda badan ee ku xiran YouTube channelkayga Tita Cadde meel walba aad dunida ka joogtaan iyo si walba oo muuqaalkan idin soo gaari doono waxa idin leeyahay habeen wanaagsan qof walbo waxa ay u tahay markaas u wanaagsan haddii aad cusub tahay soo dhawow subscribe channelka gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay fiidiyoogana like saar waana ku mahadsantihiin mar walba daawashada fiidiyodan soo dhigo kuna soo dhawaada muuqaal cusub sida hordhaca muuqaalada aad ku soo aragteenba laba qodob ayaan barnaamijkan uga hadli doonaa runtii video aad set u ah oo runtii marka uu ku soo gaaro haddii damiir damqada ah leedahay caloosha ku gadoomi doonto iyo gabdhihii unukaa leh iyo xoogeena aan ku joognaa oo ayagana xabsiga laga sii daayay oo mar kale baraha bulshada ka wada buuq marka labada qodob ayaan ku falanqeyn doonaa haddii Allah awood u ogolaado hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Beedhabo ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay soo qabaday shaashada ayadoo runtii xamaalanaysa dhismo markaa ka socday halkaas wiil ayaa damcay inuu xaaladeeda iyo duruufaha markaa ku kalifay inay shaqada adag ay ka shaqeyso markii uu wiilka wareysiga uu ka qaadi rabay ayaa waxaa sheeda ka arkay nin markaa u ahaa kaaba shaqaalaha meesha joogay xukumayay kadib markuu arkay hooyadaas inay ka baxday xeendaabka shaqada ayna wareysi siinayso wiil ka socday TV-ga Beedhabo odaygii kaaba shaqaalaha ahaa siduu u soo socday hooyadiiyo tunka inta qabtay uu qadiyay shaqada ku celiyay fiidiyogaas runtii baraha bulshada markuu soo gaaray fal celina badan ayaa runtii ka timid dadka Soomaaliyeed waa horta dad isku damqada dadka Soomaaliyeed qofka markaa dhibaataysan runtii waxaa kaliya ay Soomaalidu ku amaanan tahay waa in marka qofka Soomaaliyeed uu xaalad adag ku jiro inay xaaladda adag ka saaraan taas horta way ku amaanan yihiin gobnimada Soomaalida aan ku jeclahay waa marka xaalad ku haysato hadda maanta saan marka u qurux badanahay oo meel fadhiyo agtooda wax kama aalo laakiin markaan soo fariisto dhibaato sheegto runtii isla markii garab istaaga la ii muujinaa marka dadka Soomaaliyeed way ku mahadsan yihiin horta markii ay xaalad adag jirto inay caawiyaan marka hore waxaan rabaa inaan idin la wadaago ama mar kale aan idin xasuusiyo fiidiyowga hooyadan markuu uu tunka ka qabanayo ninka kaaba shaqaalaha ah uu qadinayo ayaa ku qasbaysa shaqooyinka caynkan oo kala ah anagoo u socona shaqo sportis ayaan halkan waxaan kula kulannay maamadan waxayna bulshada Soomaaliyeed ay u diraysaa fariin qiilaysan waxayna sheegtay in shaqadan ay ka doorbiday intii ay tuugsan lahayd hooyada Soomaaliyeed indhiina ku arkaysay runtii fiidiyogan meel kasta oo baraha bulshada oo Soomaali
ay kala xiriiraan ayuu yaalaa oo la wareejinayaa. runtii dadka Soomaaliyeedna aad ay ugu falceliyeen. laakiin waxaa idinku bishaareynaa hooyadan hadda isbitaalka Samakaal ayaa arinteeda meel saaray. hooyadan business loo abuuraa ama ganacsi yar tabakaaye ayaa loo dhisayaa, waxaana maalgelinaysa Samakaal. cid alla ciddii ilaahay wax siiyey oo dadka bini'aadamka isku mid maahan, qofki ilaahay wax siiyey oo baxsan kara sadaqo hooyada ku sii kaalmee oo caabi. laakiin hadda kadib hooyadaasi Samakaal waxay sheegeen isbitaalka weli Samakaal in mar dambe aysan xamaali doonin, ay nasan doonto ayadoo fadhisana ay ganacsan doonto. marka Samakaal waxaan leenahay jiro oo jooga maadaama hooyadan aad meeleyseen. haddii qodobka aan kasoo tagno, maanta waxaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho laga sii daayey gabdhihii unukaa leh iyo xoogiina ku joognaa. marka ugu horeysa xabsiga laga sii daanaya marka hore isla arki doonaa. waa Bilaal Bulshaabi oo xabsiga dhexe hortiisa kula dabaaldegaya, farxadda la qaybsanaya gabdhihii muddada ku xirnaa xabsiga dhexe magaalada Muqdisho kadib markii loo xirxiray in ay baraha bulshada ka wadeen kicin laba qabiil, macnaha kicin laba qabiil inay isdiriraan ama ka dhex shaqeynaya inay fitna ka dhex abuurato. markii gabdhaha la soo daayay kadib waxaa la rabay inay quusteen oo ay nabad galeen oo ay arintoodii bashbash iyo barwaaqo tahay. horta intaan arintaa u gudagelin, gabdhahan horta 6 bilood in lagu xukumay waa isla ogeyn. laakiin waxaa isweydiinayay oo laga yaabaa gabdhahan waaba la xukumay 6 biloodaa lagu xukumay, maxaa hadda banaanka ay u joogaan? gabdhahan xeriga waa loo gaday, reer kasto waxaa laga baxshay 9,500. gabdhaha unukaa leh cidda wax ka bixisay ilaa hadda anaga ma caddeyn karno, laakiin xooggeena ku joognaa. waxaa ka bixiyey lacagta musharax madaxweyne liibaan shuluq nin la dhaho ayaa lacagtaa bagaateeyey, laakiin reerka unukaa leh ilaa haddana ma soo gaarin cidda lacagtaas ka bixisay. laakiin xooggeena ku joognaa, liibaan shuluqaa ka bixiyey. markii taa dhammaatay kadib barnaamijkan bal ila arka. markii la soo daayay Farxiisoona life ay soo gashay, asxaabaa la saaran, waxay leedahay taale ii dhisa waxaana iigu qortiin milkiiladii martida ciishay. milkiilada waayada unukaa leh waaye, martiduna waa xooggeynaan ku joognaa. fideogaas jawaabtiis marka unukaa leh ilan way hadleen maaho, xooggeynaa ku joognaana waa kuwaan jawaabay bixinayaan, ilan xooggeena ku joognaana bal ila arka. xamar iskale anaa idiin sheegaya. weli sheeko kow ma joogto, dadkan biyo hoostooda iska arkeen. dadkan waxay mudnaayeen 6 bilood inay soo dhammaystaan si ay ugu waantoobaan. sababta waxay tahay hadda gabdhahan xeriga ay xirnaayeen waxay ahaayeen xerig oo raaxa ah, way soo nasteen, cashadooda karameela looga keenayay, bidsadooda iska cunaayeen, dad group oo is yaqaanay ahaayeen, waa iska sheekaysanayeen, waa iska baashaalayeen. meeshana siina hotel camal u ahayd, sababtoo sariiray seexanayeen, cunto VIP ana banaanka loogu keenayay. marka xukunka sidaa ugu dhacayna maalinka xukunka ku dhacay waa ogeydeen, daraadu ah shalay bisaa kasoo wareegatay, maantana waa laga sii daayay. min 9,500 doolarna waa la bagaatiyey. intay xirnaayeenna booqashada iyo ka warahayntooda mar walba waxay ahayd mid isdaba joog ah. marka dad noocaas loola dhaqmo maa waantoowaya. marka waxaa ula sii weyn marka qabiilka, maadaama qabiilkay u dagaaninayeen garab istaag ay u muujiyeen, hadday noqon lahayd xanaaneyntooda,
markii la xukumay inay xarigoodii u gadeen marka ma kawaantoowayaan marka unukaa leh iyo xooggiina ku joognaa ay soo taagan yihiin laakiin meesha ku dambeyn doonta waa isla arki doonaa ilaan hadda maanta la soo daayay ma la nasanin xitaa oo qaraawisalaan iyo dadku imaanayeen waqti xataa lama qaadan waxay taagan yihiin waa ujeediin taalaha la ii dhiso hana lagu qoro milkiiladii martida ciishay meeshaan xamar yaa iska leh galmudugaa iska leh taagan yihiin xoogaygan ku joognaa beer xoogaygan ku joognaa iyo waxaa u bixiyay aniga unukaa leh video hadduu kusoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad like saartid si uu meel fog ku gaaro haddii aa cusub tahayna ama markii horeba aa ila joogi jirtay laakiin isha aa iga dayi jirtay intaa kadib waxaan kaa codsanaa inaa isha iga sii daawanin meel baan u socdaa diyaaradayda meel baan u socdaa ilma adeerayaalo wafdigan ha ka harina wafdigan dhinac ka soo raaca subscribe la-aan ha daawanin subscribe laan ha daawanin please subscribe laan ha daawanina subscribe laan ha daawanin waa idin baryaa tol iyo qaraabo haddaan nahay videogana like saara laagtu lacag ma ahan waa fartaada keliyo meeshaa saartid wax weyn yani ii tahay sababtoo ah videoga meel foguu gaaraa yaa marka waa mahadsantihiin mar walba garab istaagiina daawashadiina waa idinkaga mahad celinaa inaad like badan saartaan video kastana isku xilqaama wax ay kaa halaabayo ama wax lagaa jaraayo ma jirto please subscribe like share and comment fikirkaaga xora u tahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo